nidaamkii federalismka constitutionkii wadanka u yaalay shuruucdii dalka u taallay waxaana sameynaya waa dawladda federaalka ugu horeeya ra'iisul wasaaraha wadanka marka waxaan leenahay dadka shacabka ee Soomaalida Ethiopia waa qoomiyado waxaan nahay qoomiyada Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ha loo istaago midnimadeena ha loo istaago mataqaana isku duubnideena ha loo istaago sidii loo difaacan lahaa wadankeena iyo sharafteena iyo karaamadeena cid kasto inagu soo xadgudbaysana maanta waxaan haysanaa chance in la inoo adoonsado ma sidii awal inoo adoonsanay in la inoo dhibaateeyo sidii awal inoo dhibaateeyo ma aha haddaan qadiyadeena iyo sharafteena maanta difaaci weynana inaan dayuusin doofaaro aan noqonayna ayaa ka cad marka waxaan baaqaya dhamaan dadka Soomaalida ee dibadda daafeeyay joogana in arinta la socdaan in laga dhiidiyo in cid kasta ma taqaana dareenka wadaniga ay muujiso isla markaas si degdeg ah hawsha wax laga qabto wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim xarunta deegaanka Soomaalida Ethiopia xarunta xisbiga saaka deegaanka Soomaalida Ethiopia aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyay wax loo keenana ma garanayno kor baana laga qabsaday dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dawlad deegaan buu ahaad Soomaalida Ethiopia dalka Ethiopia wuxuu ku dhisnaa federalismka dalka Ethiopia uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Ethiopia kamid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhaxeeyay marka maadaama dastuurka dalka Ethiopia ay dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ku dhisnay dastuurka Ethiopia waa la jabiyay in la jabiyayna waanu arkaynay anagu waayeen oo dhan laakiin waxaan usnaynay ninkoo dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dastuurka ininku aad ansaxiseen ha u hor jabinina qoomiyad baan ugu soo duushay ra'iisul wasaarihi dalka Abiy qoomiyad buu noqday lama nagu soo duulay meel walba ciidankii Oromo iyo ciidankii federaalka ayaa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta haysta madaxweynihiina meel ku sugan yahay war uma hayno shacabkiina meel walba wuu kacay shacabku waa la leynayaa marka Soomaaliya daafaheeda meel kasta joogtaan maanta waxay maraysaa qadiyad maanta haday inaga Soomaali ay Oromo ina qabsato wax qadiyada iyo wax sharaf oo inoo haray ma jiro madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta meel ku sugan yahay cid war u haysa ma jirto waxa laga xun yahay shidaalkii inoo soo baxay baa laga xun yahay waxa laga xun yahay horumarka aynu gaadhnay baa laga xun yahay waxa laga xun yahay dadkeena wax bartay baa laga xun yahay waxa laga xun yahay qaabkan isku maamulayna laga xun yahay nin kasta oo Soomaali ah oo wax qabayo waxaad qabtay dib intaad u dhigato waa inaad maanta dhiigu ku kaco oo dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia wada artan in la qabsaday milyan xataa ku haysto waa inaad milyan xar aad ku hadashaan oo in la qabsaday ogaataan wixii inta ka dambeeyana saacad daqiiqad wixii soo kordhayaan in la socodsiinayna aad bay mahadsan yihiin saaxiibaday sida ay sheegeen waxa weeye saaka oo ah maalin sabtiya waxa weeye dadkan waxaan ku suganahay xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waxaanu halkan u fadhinaa mas'uuliyiintii deegaanka golihii dhexe ee Soomaalida dhammaan goobihii muhiimka ahaa ciidamada waxa weeye mataqaanaa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia deegaanka min mooyaane ilaa iyo dawalle xuduudda waxa weeye mataqaanaa ku hareeraysan sugayay buu ahaa waxa weeye mataqaanaa anagu isma aanan lahayn cadow dalka ayaa tihiin waxa weeye eraya fara badan oo waxa weeye mataqaanaa kicinaya shacabkanaga oo second citizen laga dhigayo ayaa waayaha ra'iisul wasaaraha dalka afkiisa uu ka sheegay waxa kamid ahaa waxa weeye hadal uu sheegayo oo uu soo galiyay eray ah Soomaalida Ethiopia which means Soomaalida iyo Ethiopia waxa weeye mataqaanaa anagu ah dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa weeye mataqaanaa waxa maaragtay waxa weeye mataqaanaa kale oo waxa weeye mataqaanaa uu ka hadlay toddobaadkan gudihiisa arrimo ku saabsan natural resources deegaanka shidaalka oo uu yiri 5 daqiiq waxa weeye 5% ayay ku yeelanayaan dadka laga helay which is wrong taas ayay shacabkanaga ka kaceen taas ayaa social media ku jirtay toddobaadkan isagoo taa maxaan ku raday waxa weeye mataqaanaa sabab ka dhiganaya ayuu waxa weeye saaka waxa weeye mataqaanaa 5% looga hadlayaa iyo shacabkii ku leynaya xabaday hadda ridayaan baa leeyay inay dad dhinteen inay waxa weeye dhaawacmeen waan idin soo sheegi doonaa laakiin anagu sharcigi baan wari taaganahay higi mingistigi baan taaganahay waxa weeye hal talaabo oo sharciga jabinaysana inaanu ku dhaqaaqno waxa naga hor istaagay madaxweynaha nagi iyo mas'uuliyiinta nadi waxa weeye marka ilaa hadda sharcigan ilaalinayna
sharcigaan ilaalinaynaa waxaanu sheegaynaa qoomiyadda waddanka qabsatay inay waxa weeye sharciga ilaaliso waxa weeye dal wakiil kama noqon karaan waxa weeye si qoomiyadeed bay noola dagaalamayaan intayna waddanka qabsanin iyaga waanu islaynay waanu isku dhacnay waan islahayn laakiin markay waddanka qabsadaan waxa weeye dhibaatadii jirtay way xalinayaan dagaal ciidan ayaa ku socday qoomiyadda Soomaalida 5 bilood ee ugu dambeysay kumanaan ayaa mooyaane ku dhimatay kumanaan ayaa tulli ku dhimatay kumanaan ayaa baabili ku dhimatay ilaa hadda shacabkanaga annaga waxay nagu dhaliinayeen ciidan baa dagaalamaya maxaad u dagaalami laadihiin ciidan baa dagaalamaya maxaad u dagaalami laadihiin waxa weeye ilaa hadda madaxweynaha naga naga hortaagnaa haddana waxaan ka codsanaynaa waxa weeye mataqaanaa in la fasaxo waxa weeye mataqaanaa ciidanka deegaanka iyo shacabka deegaanka oo waxa weeye la iska celiyo cadawga qabiilka ee nagu soo duulay waxaan rabnaa maanta laga bilaabo inaan u helino shacabkanaga la gumaadayay waxa weeye uma dulqaadan karra cadow shisheeyaan iska ilaalinaynay cadow qabiil baa maxaa nagu soo duulay dhammaan ciidanka maanta jigjiga la wareegayna waa oromo waa qoomiyad ma aha ciidankii federaalka waxa weeye ciidankii federaalka ee qumanaa arrintaa way ka soo hor istaageen saanu xogta ku hayno waa ciidan qoomiyadeed weeye marka waxa weeye shacabka waxaan leenahay dee difaacda waddankiina difaacda horumarka difaacda maamulkiina taageera waxa weeye kuwa waxa weeye Soomaali isku sheega ee waxa weeye mataqaanaa dadka waxa sameynaya la soo safarayana war shay oo yuuban leenahay isku xishooda isqanjeeliya dhiig iska baara waxa weeye hawsha halka way ka weyn tahay saaka halka way ka weyn tahay maxaan kula deegaankiina difaacda heego deegaankeeda ha difaacato intaas ku soo goobay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasta joogo dal iyo dibadba saaka waxaan ku soo nahay xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaan u dhannahay dhammaan mas'uuliyiinta deegaanka oo maxaan kula ugu horeeyaa afayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo madaxa xarunta dhexe iyo dhammaan kabaniga waxaan halkan ka cadeynaynaa ma saaka aroortii inuu deegaanka Soomaalida ku waabaristay ciidan mataqaana wata amarka ra'iisul wasaaraha kaasoo maxaan kula uu saldhigiisu yahay inuu qabsado deegaanka Soomaalida Itoobiya sida awalba ay ku taamayeen himiladoodu ahayd in mataqaana kaliya waddanka Itoobiya uu noqdo oromo dhawaanto maxaan kula waxaan xasuusanaa dagaal adag oo mataqaana labada shacab dhexdooda ka dhacay oo ay xaqooda iyagu ciidanka iyo oromadu waday in mataqaana dhibaatadii ka dhacday inay fanji wadaan waxaan wadnaa madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar sababta lagu haysto ee loo raadinayo inay tahay dhulkiisa uu difaacay shacabkiisa uu difaacay ee uu horumariyay iyo dastuurka dalka uu ilaaliyay inay tahay waan ognaa waxaan u sheegaynaa cid walba ay khusayso inaan ahayn dad la muquunin karo nalama muquunin karo kaliya dastuur baa lagu wada joogi karaa maxaan ku rahay hal daqiiqo inta aanu nool lahayn dadkooda dalkooda iyo maxaan ku rahay diintooda waxaan lagu qasbayaa inaan oromowno waxaan lagu qasbayaa abaagadaygu inuu noo taliyo waxaan lagu qasbayaa in mataqaanaa resource-naga iyo deegaankanaga iyo dhulkanaga la qaato taana dhibashaan ka xignaa maanta ka xignaa bari baan ka xignaa cidda aaminsanayna maquunin karto maxaan ku rahay abi waxaan leeyahay abiyow adiga iyo lama iyo maxaan ku rahay qeero inay yihiin inay onag yihiin onagtii xuduudda ka soo gashay inay yihiin inay jawharka amar qaadanayaan baan ognahay shacabkii dhalinyarta waxaan u sheegaynaa iska celiya meeshaad ku aragtaanba dhagax tuura xabadkii haysta xabad iskaga celiya iska celiyaan idin leenahay madaxweynihii meel ku sugan yahay ma ogin xaruntii maxaan ku rahay madaxtooyada waa la qabsaday dowlad deegaanka waa la qabsaday laakiin taasi ooma suurtoobayso meeshu jooga waa soo qabanaynaa cidda haysatana maxaan ku rahay xabad baan madaxa kala dhacaynaa wey بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay xarunta xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya waxa weeyaan waxaan ku sugannahay waxaan ku fadhinaa muxuu ahaayay hogaamintii deegaanka intii badnayd waxa weeyaan saaka markuu waagu bariyay 12 subaxnimo waxay shacabka anagu iyo ardaydii iyo shaqooyinka caadiga waxa labaad lagu waabaristay ciidamo federaal oo waliba aan xaqiijinay inay oromo kaliya yihiin oo ciidamadii nadiifta ah ee Itoobiya aysan ahayn ayagoo oo dantan ka duuliyaan ay tahay nidaamka anaga inay burburiyaan in ay Soomaalida oromo ay u bedelaan haddii ay oromo u bedelaanna ay macnaha doonayaan inay khayraadka anaga iyo dalka anaga iyo dahabka anaga iyo shidaalka anaga inay qaataan taa marka waxaan leenahay cid walbana u sheegaynaa ma suurtagelayso mana yeelayno dhibaatooyinka ugu waaweyn saakan waxaa ka mid ah in dhammaan xarumihii dowladda iyo muxuu ahaayay hoolashii iyo madaxtooyadii
zoo iyo ciidan lagu wareejiyey isla markaana ilaa hadda allaankan madaxtooyadii iyo madaxweynihii meel ay ku sugan yihiin aanna garanaynin waa arrin la yaab leh federaalkana waana uu inoo dhexeeyey dastuurkana waan aaminsanayn laakiin waxay rabaan dastuurka inaan jabinno inaan ka dhaqaajinno oon annaga go-aanka annaga qaadano ayay doonayaan waxaana reebayna nagu qasbayaan cid walbana waxaan u sheegaynaa bulshadaanada iyo shacabkaanaga hadday dal tahay hadday dibad tahay inay iska celiyaan mana yeelayno oromana ma noqonayno nidaamkaana ma qaadanayno ciddii wax ka basan nidaamka la timaadana madaxa ka jarayna waa layaano aad u mahadsantihin bismillah waxaan ku sugannahay xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya siday horey saaxiibada ugu shanqariyeen waxaa ka dhacday saakii lagu waagbarigstay ciidan dabaabado wata qoryo wata sugug wata oo ka soo galay meel ay ka socdaan iyo meel ay socdaan aan la garanaynin laakiin isaan leenahay waxaa soo diray waxa weeye abi amarka soo bixiyey lama magarsa amarka soo bixiyey jawhar amarka soo bixiyey onagaa dhow waddanka qabsatay saaka taxaadirkan jigjiga waxaa waddanka qabsaday onagaa haysata gacanta ku haysata waxaan leenahay shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya iyo shacab weynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay hal iska celiyo onagta hal iska celiyo oramaha hal iska celiyo ciidanku waa oramaha wadata oramaha mas'uul waddanka qabata waxaan ugu qasbaa oromanimaan ugu qasbaa afka oramo ku hadla way oramaha intalisa abaagadaha intaliyo lama hayn maamulo yaa lagu qasbaya ma yeelayno ilaa qaf nafta ay naga baxayso kan ugu dambeeya nafta ka baxayo ma yeelayno waa tuug dhalay hal iska celiyo oo meel walba laga howlgala oo hal dhagax tuuro oo naftiina u huro oo waddankiina wadannimada عدة دقائق ويدا وديوسوا وصوماليا وساك ديجيدا دقائق ويدا واسكعلي ويدا ومال اسكسار ويدا وديوس هل اسكعلي ورمضان هل اسكعلي وحوي اسكتوبنا وحوي بايكوي ماضيان فرانا هني من مدينة وحوي من مدينة صوماليا لقى شقية ودن مدينة لقى شقية ديجينا وحوي هالوهر نف مال هالوهر هل اسكعلي ورمضان مال الله ما يسكوارك تان هل اسكعلي مال ساعات هل اسكسار waxaan leenahay wax wadanka wama weeraraya waa onaga weerarana weeraraysa onagana qabsatay oramaana qabsatay abaagadana qabsaday ma yeelayno nafta wax way lagu reeyna aad aad ma sandeed dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya saaka aroortii waxaan ku waabarisanay in afgamin lagu qabsado kilkanay si cad baa afgamin lagu qabsaday constitutionka wax ka baxsan ma lagu sameeyay sabab male xukuumadana iyo xisbigana iyo nooyeen baa afgamin lagu qabsaday madaxweynaha nagi xaradiisii baa la weeraray ilaa haddana wuxuu ku suganaa warkeen Ethiopia federalism baa ahayd laakiin si cad baa naga loo qabsaday si cad sharciga lagu tuntay abiy baa ku tuntay lama ku tuntay si cad baa loo qabsaday oo ka madax banaan constitutionka Ethiopia lagu hagayo ka madax banaan waxaa la qabsaday waxaana soo waray oo cad dagaalkiina dhex maray Oromia ee dadka naga lagu leenay ilaa hadda maanta khayraadkan lahayn la rabay la qaato shacabkanagi oo maalin kasta la leeyahay waxaana loogu daray maanta in dhammaan awoodii xukuumadda la qabsado waa wax cad weeyaan maanta jijigan dhammaan meel kasta taagto oral baa taagan meel kasta taagtan onaag baa wadata xaruntii madaxtooyada la weeraray wuxuu madaxweynaha ku sugay warka maayno shacabka deegaanka waxaan leeyahay waxa weeyaan in badan baan aamusnayn oo islahayn dawladdan hadday mar timid isbeddelkan la jaan qaada waxyaabaha ma taqaanaa khilaafkeeda dhex maray idinkii Oromia hal xaliyo laakiin in madaxweynaha nagi la diilo loo hanjabo waa lagu dil la dhaw markasta isla markaana maanta la weerar la soo weeraro yay noqotay waxaan leeyahay iska halgama la dagaalama marna hoos fadhiisan mayno Oromo walaana hoos fadhiisanin shacabkana waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan ba dhiidiya ka halgama oo ma taqaanaay iska saara mana ogolanayno in la baabiyo constitutionkan sharci baan leenahay xaq baan leenahay deegaan baan nahay dawlad baan nahay baarlamaan baan nahay xukuumad jirtaan nahay sharci annaga na fargelin karana ma jiro constitution na fargelin ma taqaana wax awood lagu fargelin karana ma jiro madaxweynaha nagi laakiin maanta iyo xukuumaddanadiiba in afgambi cad lagu sameeyo baa cad sidaas darteed shacabkeena waxaan leeyahay mar kasta in ay dagaal ay la galaan oo ay iska celiyaan cid kasta oo duulimaad ku ah systemkooda cid kasta qeero Addis Ababa Minnesota lagu joogo wuxuu ku hadlay walaalkay Addis Ababa dhexda ku hadlay walaalkay mar kastana wuxuu ku hameeyay inuu deegaanka Soomaalida oo nabad maanta ahaana deegaanka ugu nabad badan deegaanada Itoobiya oo ayna wax dhibi ka jirin caasimadeeda iyo deegaanadeeda oo nabada horumarkii oo saxawda u socda nabadii oo saxawda u socota shaqaalihi xafiisyada dawladda saxawda u socda maanta in lagu waabaristo xarag kasta oo ciidan xafiis kasta in la hordhigo gaari xeradii ma taqaanaa xafiisyada la hordhigo anagii mas'uuliyiinta hadda laftigeeda hadda meel aan ma taqaanaa aanu meel isku soo hordhigo xaaladnada saas darteed shacabkana
waxaan leeyahay in badan baadna aamusnaydoo lahaydeen maxay u aamusan yihiin oodna dhaliilayseen ood lahaydeen nimankan dagaalkana lagu haye cad ee dadkanaga la leenayo maxaad u aamusantihin laakiin annagiiba maanta lagu daray annagiiba lagu daray oona la soo weeraray oo aan lagu haystaa on maxaad wax mataqaana marka taas in shacabka anagu uu ka halgamo yaa soo jeeda laad maasantihin بسم الله الرحمن الرحيم ساكن مركو واو بريسيو اورما iyo onag oo iswaata tijiga soo galay adiyana soo diray constitutionka iyo sharciga iyo dastuurka leeyahay ee dalka walaal uu burburiyay si la aliyana waan iska celinayna kana gaban mayno qof yar iyo qof weyn iyo dumar rag iyo haweenba dhammaan shacabka deegaanka Soomaaliya Itoobiya rag mucaarad iyo maxaafidba saaka waa inaynu oromo iska celinaa aan ka saarno qoomiyad lamidaynu nahay dalka waa dalkeeni waa deegaankeeni ilaa awaash baynu lahayn inta darteed sida daraadeed oroma iyo Soomaali waa la siqanay maanta macal arisay gudeeda waa inaan qabsano waan qabsan karnaa uraaladan ay halka keenan iyo suuqyadana waan ka saaraynaa dhalinyaradan hadda dhagax kaga saartay dhagaxaan intaan kaga saarno waan ku difaacnayna oromana ma doonayno namana qabsan karto luuqadeedana numa khasbi karto shidaalkanaga ma qaadan karto khayraadkanaga ma qaadan karto annaga u nool annaga u joogno annaga u dhimanayna sida darteed dhammaan shacabka xaafadaha jooga iyo kuwa degmooyinka jooga iyo kuwa tuulo jooga dhammaantiinba iyo dhammaan caalamka dhan adduun weynaha waxaan ka codsanaynaa in si toos u soo galo dhammaan in la yiraahdo maanta Soomaaliya Itoobiya annaga oo Soomaali waan ahaynde haddii Soomaaliya la raacin oo walaaladana ma diidan ayaga nala difaaci jiray shalay maanta nala difaacaya isagana filin ilaa mooyaale ya ilaa maxaa ku dhahay waxa inta u dhaxaysa ya ilaa iyo booq iyo galaadi ilaa oo u sheegayna in oromana soo weertay abiya waa oromo lamu waa oromo ciidan kala kay oromo haysta u ka wada qaado tigreega oo joogay iyo maxaa ku dhahay qoomiyadii kale to oromo huwan caalamka federaal